waxaa maanta si rasmi ah loo calaamad saaray garaadka guud ee beesha guuleed garaad ee barkad garaad Cabdirashiid Cismaan Waraba Dheere oo ka mid noqon doona ismada dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyadoo lagu calaamad saaray deegaanka Banyaal oo ka tirsan gobolka Cayn waxaana ka soo qayb galay dhammaan ismada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo odayaal waxgarad haween siyaasi oo ka kala yimid dhulka Soomaalidu degto iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo Bashiir Maxamed Xaashi iyo ufuud ka kala Puntland iyo Somaliland وعن كوشة قشين يا قرشك يا هولها دعاء ميسان كاله نا أيضا قصارين يسقنا أي سنة وسنتلوين سيدا مركعات عمرتان أنا قلنا وإذا الله شقينا وانو إذا الله شقينا سيف عمل كل شقينا حتى قرأت كالكا وحبان قال لي يا وعاري وحد لا تمدان كل شقينا أنت سنة وأنت haddaan midigtu bidixtiir inay taharma goyseen subxaanahu wa tacaala isugu keenay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh kuna suntanaan doonta insha allahu tacaala taariikh socodka doorashooyinka garaadada iyo boqoradeenna intaa markaan kaga gudbo waxaan salaamayaa dhammaan bulshada meesha isugu timi haddii ay tahay garaado suldaano cuqaal mudanayaal kale madax iyo minjo iyo marwooyinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaa kadib walaalayaal hadalka qiimihiisi waa la yidhi waxaan rabaa inaan ina xasuusiyo haddii xil caynkan oo kale ah ummadda islaamka dhexdeeda waxa weeye laga dooranayo waxaad ogaataan marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa xaggiisa ka doorta markuu ilaahay doorto ee samada ka doorta ayaa dhulka loo soo daadajijiyaa nin waxaa laga yaabaa sababtii uu jannadaba ku tegi lahaa inay tahay maaragtay xilkaa iyo mas-uuliyaddaa la saaray ninna waxaa laga yaabaa tii uu ku naar mudan lahaa ee naarba ku geli lahaa inay u tahay ibni aadankuna waa ogtihiin oo martabadda iyo madaxnimada waa jecelya ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala tii rabbi uu jannada ku geyn lahaa garaadka in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo noqono oo la taliyaashiisa noqono oo waxgaradkiisa noqono siibana waxaan la hadlayaa cuqaashi waxaan u malaynayaa garaadadii way baaseen garaadadiina waa ka daba tageen waxaan leeyahay war cuqaashay bal garaadada ha baasina ee garaadada hareeraha ka jooga hadalka badin maayaanu saddex qodob baan oranayaa qodob waxaan oranayaa garaadka waan u mahadinayaa qodobna waa kula dardaarmayaa qodobka aan garaadka leeyahay waxa weeye garaad waa kuu mahadinayaa mar waa kuu mahadinayaayo kowda dalkaaga baa lagugu doorta waa kuu mahadinaya laba waa kuu mahadinayaayo dee ummadaadi baa ku dooratay qofkuna waxba ma doortee ilaahay baa doorta waxaan u maleynayaa 120 habeen uurka hooyada markaad ku jirtay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuu doortay inaad ummad hogaamiso mar haddii meeshii lagugu doortayna dalkaagii yahay ummadaadina ay saa wada taagantoo ku dooratay waxaan ku leeyahay hambaliyaan ku leeyahay garaad xafiisyada dowladda iska laali وكود عيا إن بدل ما كود عيا وحد يبدأ على سبحان الله وحب كود عيا وين ما نحفز دولة كبار الرجالات كلهم والله داريا إنه سكاي داريا حفيزية دولة أنا قابرنا كلا تدرو أما السمر إن كانوا هنيه إذا كانوا في عناية إذا كانوا قوم بناية ده واحد لو طلع يا هو حفيزية دولة أو تجيبهم مانع waxaan ugu dabeyntii ka hadlay garaadka beesha garaad Cabdirashiid Cismaan Waraba Dheere ilaalin kartaa sharaftiina iyo tayda walaalayaal inta hadaan ka taa kaga gudbo aniga waan ka tagaynin
dhaqankii la ii igmaday dhaqankii la isaaray iyo sharaftii dad qaabkayga shaqo wuxuu u ekaan doonaa sida soo socda isimadu dhaqan ahaan waxay leeyihiin duco iyo guddoon bay leeyihiin anigu duco iyo guddoon iyo bakoorad iyo cimaamad geed hoostii lala fadhiyo ku ekaan maayo oo keliya waxaan la shaqayn doonaa culamaauddiinka waxaan kala shaqayn doonaa masaajidda maraakista cilmiga ah iyo waxbarashada waxaan la shaqayn doonaa hadduu ilaahay idmo isimada iyo cuqaasha waxaan kala shaqayn doonaa xaajooyinka dadka dhex mara iyo dhibka dadka kala gaadhay in aan sida cadaalad ah ku dhex galno insha allahu tacaala waxaan la shaqayn doonaa aqoon-yahanka waxaan kala shaqayn doonaa xagga jaamacadaha waxbarashada asaasiga dugsiyada dhexe waa Farxaan Maxamed Caydiid Ariel TV Laas Camal